soo dhawo walaal magacayga waa Dr. Cabdilatiif Maxamed Xuseen bal iga sheekay sidee lagu haya waa maxay xanuunka kugu sabab inaad maanta dhakhtar u timaado muxuu yahay Doctor waxaan aad ugu cabanayaa bog xanuun labo iyo matag oo aad ii dhibay runtii taasaa igu kaliftay in aan maanta ku imaado oo qaybtada clinic isbitaalka inaan kugu imaado goormaad isku aragtay marka xanuunkan bog xanuunkan labada iyo mataga goormaad isku aragtay waxaan isku arkayay ilaa iyo muddo 3 maalin ah ayaan isku arkayay bog xanuunka labada iyo mataga laakiin xalay iyo maanta ay aad u soo darsadeen oo waliba saaki oo kale dhowr mar ayaan matagay gartay bog xanuunkan iyo labada qaasatan mataga markaad cuntada aad cuntid kadib miyaad isku aragtaa oo markaad cunto fiican aad cuntid miyaad bog xanuunka iyo labada inaad dareentid miyuu matag ka yimaada mase bal goormo aad u daran yahay badanaaba waxay aad u badan yihiin markaan cunto cuno kadib oo kale markaan cunto aan cuno ayaan waxaan dareemaa bog xanuun aad u daran kadibna laba ayaa qabato labada kadibna matag ayaaba si raaco isla cuntadii aan cunay waaba soo mataga gabi ahaanteedba ma dareentaa wax nafis ah markii aad matagto kale oo cuntadii aad cunto kale markii aad matagto wax nafis ah ma dareentaa oo in xanuunkii inuu ka kala yaraaday ila labadii oo kale markaan matago oo cuntadii aan matago waxaan dareemaa nafis aad u fiican aan dareemaa oo bog xanuunkii ila labadii way iga yaraadaan oo nafis fiican ayaan dareemaa maxaa intaasi dheeri ka ah oo la socdo oo aad isku aragtay waxaa la socdo kale madax xanuun ayaa la socdo iyo laabjeex oo mararka qaar ah oo aan saas u badnayn wax daawo aad qaadato ma jirtaa oo xanuunkani markii uu kugu bilowday ilaa iyo hadda wax daawo aad isticmaashay waxaan badanaaba aad u isticmaali jiray daawooyinka sida ibuprofen oo kale oo marwalba madax ay xanuun oo aan qaadan jiray xanuunkani waxaa loo yaqaanaa gastric ulcer waa nooc ka mid ah peptic ulcer peptic ulcerka guud ahaan waxaa loo qaybiyaa laba gastric ulcer oo ah bog calooleed ama bog ku dhacda qaybta caloosha iyo duodenal ulcer oo ah bog ku dhacda qaybta duodenumka oo ah qaybta ugu horeysa ee mindhicir-yaraha ama small intestine-ka calaamadaha uu la yimaaday bukaankani waxay toos u tilmaamayaan in uu haayo nooca loo yaqaano gastric ulcer ama bog caloleed sidaan u naqaano ama gas siday Soomaalidu ay dhahdo gastric ulcerka waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah sida bukaanka hadda calaamadaha uu sheegtay oo kale oo ah sida bog xanuun labo iyo matag oo kale badanaaba calaamadahaasi waxay yimaadaan markuu qofka cuntada uu cuno kadib sababta ka dambaysa waxa ay tahay qofka markii cunto badan uu cuno cuntadaasi waxay cadaadis saaraysaa qaybta bogta caloosha meesha bogta ee caloosha ulcerka ay cadaadis saaraysaa cadaadiskaasi pressurekaasi ayaa waxaa ka dhalanayo in qofka inuu xanuun u ka dareemo qaybta bogga kadibna ay raacdo labo ugu dambeynna bukaankii uu matago markii bukaanku uu matago kadibna wuxuu qofkii uu dareemayaa nafis oo waxyaabaha lagu garta gastric ulcer waxa ay tahay qofka dadka badanaaba xanuunkani ka cawanayo waxay nafis dareemaan markii iska matajaan ama markay matagaan kadib ay nafis dareemaan sababtu waxay tahay qaybtii bogtii ayaa waxa ay dareemaysaa nafis macna relief ay dareemaysaa oo cadaadiskii cuntadii oo saarnay ayaa meesha ka baxayo halka duodenal ulcer badanaaba qofku wuxuu xanuun dareemaa markii uu gaajoodo ama baahi ay qabato sababta ka dambaysan waxa ay tahay badanaaba bogtaasi waxay ku taalaa qaybta duodenumka oo ah qaybta ugu horeysa ee mindhicir-yaraha markii qofka uu gaajaysan yahay caloosha waxay soo saartaa dheecaano fara badan sida hydrochloric acid oo kale hydrochloric acidkaasi waxay gubaysaa qaybta bogta ku taala duodenumka ayay gubaysaa duodenal ulcerkaasi ayay gubaysaa saas la ajliga marka qofkii wuxuu dareemayaa bog xanuun ayuu dareemayaa badanaa marka dadka duodenal ulcerka mar walba cunto ay cunaan relief ay dareemaan oo xanuunkaasi badanaaba kuma yimaado oo mar walba cunto ay cunaan relief ay dareemaan halka dadka gastric ulcerka markii cunto ay cunaan ay xanuun dareemaan soo marka waa bilcagsi waayo
marka badanaa waxaa la sheegaa dadka duwaadin alsarka qaba aad ay wacyilaan sababtu waxay tahay mar walba cunto ay cunaan ay nafis ku dareemaan halka dadka gastriga cuntada ay dhibayso waxyaabaha keena waxaa ka mid ah daawooyinka badanaaba Soomaalida aadkay u isticmaasho oo loo yaqaan non-steroidal anti-inflammatory drugs sida ibuprofenka iyo diglofenka iyo wixii la mid ah waxyaabaha kale ee keeni kara waxaa ka mid ah stresska faraha badan waliba stresska wuxuu keenaa ulcer loo yaqaan stress ulcer waxyaabaha kale ee keeni kara waxaa ka mid ah cuntooyinka waqtigeeda aan la sixin oo tusaale oo kale dadka badanaaba ka taga quraacda oo kale waa waxyaabaha ugu badan ee sababa waay sababtu xitaa quraacda waxay muhiim u tahay caafimaadka caloosha waxyaabaha kale ee keeni kara waxaa ka mid ah waxyaabahani ay ku badan yihiin caffeinka cuntooyinka badanaaba caffeinka ay ku badan yihiin iyaguna sidoo kale waxay ka mid tahay waxyaabaha sababa haddaba sidee looga hortagaa waxyaabaha looga hortagi karo waxaa ka mid ah inaad saxdo cuntadaada oo waqtiga cuntada aad qaadanayso sidoo kale inaad iska saxdo oo quraacda aadan ka tagin badanaaba in stresskaada inaad yarayso oo walwalka iyo walaaca aad iska kala yarayso daawooyinkani loo yaqaan NSAID-ka oo sababaya gaaska iyagana sidoo kale inaadan aad u badsanin oo paracetamolka kale inaad isticmaashid iyo in waxyaabahan caffeinka ku badihiin oo kale iyagana sidoo kale inaad iska yaraysid intaan midkaan mid la mid ah aan dib u kulmayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.